وهرين تايوان waa dal tayisa waxbarasho iyo technology-giisuba aad u sareeyo waa dal dadkiisa iyo dawladiisuba ay soo dhaweynayaan ardayda ajaanibta ay u imanaysa dalkan waxbarasho guud ahaan waxaa ku yaala ilaa 153 jaamacadood oo iskugu jira private iyo public ba jaamacadahaas waxay ku baxaan luqadaha Englishka iyo Mandarinka sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad iska hubisid programkaas soo xaraynaysa luqadda uu ku baxayo fursadaha ardayda ajaanibta ay ka heli karaan Taiwan waxay noqon karaan fursado waxbarasho fursado shaqo fursado tababar shaqo ama internship marka aad qalin jabisad waxbarashadaada dhamaysidna waxay ku siinayaan 6 bilood ilaa sanad fiisa si aad u sii raastid shaqo rasmi ah oo dalka ku sii joogi kartid fursadaha ardayda ajaanibta oo diyaarka waxaan dul istaagi doonaa fursada deeqda waxbarasho dad badan la soo weydiinayeen deeqaha waxbarasho ee Taiwan laga helaa si guud waxay u kala baxaan laba nooc mid waxa weeye mid ay jaamacaduhu gaar u bixiyaan midna waa mid ay dawladda Taiwan siiso dalalka ay leeyihiin xiriirka diblomaasiyadeed inaga ka Soomaaliland ahaan labadaba waynu soo xareysan karnaa waxaanay ku xidhan tahay tayada codsigaaga iyo diyaar garowgaaga waxaan hoos ugu sii dhaadhici doonaa deeqaha waxbarasho ee bixiso dawladdu deeqaha waxbarasho ee dawladdu bixiso si guud saddex bay ugu kala baxaan mid waa mid luqadda lagu bixiyo oo sanad luqada ama 6 bilood luqada ay siiyaan dadka qaarkood midna waxa weeye degree-ga caadiga ah bachelor degree master's degree ama PhD saddexdaba ay noqon karaan midna waxa weeye mid research loogu talagalay ama dadka cilmi baarista sameynaya loogu talagalay deeqaha waxbarasho ee dawladda Taiwan ugu talagashay Soomaaliland waa saddex nooc mid waa mid ay bixiso wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan midna waa mid ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee Taiwan midna waa mid ay bixiso hay'adda dawliga ee Taiwan ICDF xogta ku saabsan noocyada scholarship waxaad ka arki kartaan shaashada kaliya waxaan dul istaagayaa kharashaadka ardayga la siinayo bishii oo mid isagu isku filaysiinayo ma aha in muxuu ahaay ardayga la siinayo lacagna la siinayo tuition-kiina laga qaabilayo way kala wada duwan yihiin mid kasta waxay u baahan tahay in la sii akhriyo magacyadaas idin ku baari kartaan shaashada aad ka arkaysaan waxa kaloo iyaduna xusuusin mudan waqtiga la soo xareysanayo deeqda waxbarasho ee bixiso Taiwan ICDF waxaa la soo xareysanayaa January 1 ay bilowmantaa ilaa March horaanteeda halka deeqda waxbarasho ay bixiyaan MOFA ama wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda waxbarashadu iyagoo ay bilowmaan February 1 ilaa March 1 waxa iyadana aad naloo soo weydiinay sidee loo soo xareynayaa loo soo xareynayo waxaan ku soo qabnay shaashada waxaad ka arki kartaa shaashada waxa kaliya toon dul istaagaya oo xusud midan saddex qodob mid waxa weeye inaad marka hore heshid programka aad doonaysid waxaad isticmaali kartaa website-ka Study in Taiwan ama Google-ka waad ka baari kartaa waana inaad hubisid inay luqaddu tahay luqad English ah website-ka Study in Taiwan waad bedeli kartaa language of instruction waad ka dhex bedeli kartaa oo luqadda 90% or above waxaad dooran kartaa English-ka markaas marka dhamaysid jaamacadda aad heshid waa inaad heshid admission ama wax kale oo cadeynaya inaad jaamacad xareysay kadib ayaad u gudbi karaysaa processka ah inaad deeqdii waxbarasho ka xareysid safaaradda Taiwan ay ku leedahay Somaliland waxa kale iyaduna la soo weydiinay documentska loo baahan yahay si loo soo xareeyo deeqaha waxbarasho ama waxbarashada Taiwan guud ahaanba documentska loo baahan yahay documentska asaasiga ee meel kasta looga baahan yahay waana ka shaashada ka arki kartaan waxaan yara dul istaagayaa halka proof of financial resource waxa weeye wixii cadeynayay inta Taiwan joogtid kharashkaaga sidii aad u bixin lahayd haddii aad soo xareysanaysid deeqda waxbarasho waa inaad warqad qortid marka aad leedahay waxaan xareysanayaa deeq waxbarasho haddii aad adigu iskaas kaga bixinaysidna marka waa bank statement ama wax muujinaya inaad kharashaadka bixin karaysid ayaad u baahan tahay inaad soo raacisid codsigaaga waxa iyadana la soo weydiinayay qofka haddaan uba doonaynin ba deeq waxbarasho isagu doonaynin inuu iskiis kaga bixiyo kharashaadka u baxaya ama nolosha ardaynimo waxaan ku soo koobnay shaashada waad ka arki kartaan kharashaadka ku baxaya nolosha ardaynimo waana mid ku xidhan hadba barta aad joogtid ama dalka halkaad ka joogtid magaalooyinku way kala qiimo duwan yihiin waqtiyadu way kala qiimo duwan yihiin jaamacaduhu way kala qaalisan yihiin marka habka waxay ku xidhan tahay waxyaabo badan bay ku xidhan tahay laakiin si celcelis ahaan wax weeye intaa shaashada ka muuqata ugu dambeyn waxaa kaloo la soo weydiinayay waraaqaha looga baahan yahay fiisaha
ardaynimada waana intaa shaashada ka muuqata. Waxaan rajaynayaa in xogtaasi idiin noqoto fure idinku noqoto ama fikrad idinka siiso waxbarashada Taiwan. waxaan rajaynayaa inaad idinku sii baadhaan oo idinkuna dadaalka la timaadaan qof kasta oo danaynaya inuu waxbarasho u yimaado. waxaan idin rajaynayaa nasiib wanaagsan iyo guul. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.